bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa isniin ay taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha 9 ee September sanadka 2020 qodobada wararka caawan idiin hayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka Muqdisho ka soconaya iyo qodobada dooda adag ay ka taagan yihiin oo aan caawa wararkeena si faahfaahsan idinku soo gudbin doono xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo oo diidan qodobo ay soo bandhigeen qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb galaya shirka ka soconaya magaalada Muqdisho madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo muujiyay isku soo dhawaansho kadib markii ay ku kala tageen shirkii Dhuusamareeb 3 kulan xasaasi ah oo Muqdisho ay ku yeesheen gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud haddaba waxaan caawa wararkeena ku soo qaadan doonaa waxyaabaha isla meel dhigeen labadaasi mas'uul warar dheeraad ah oo ka soo baxaya mooshin culus oo loo gudbiyay gudoonka golaha shacabka faahfaahina ka soo baxaya sarkaal ka tirsanaa al-shabaab oo lagu dilay qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose iyo rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya oo kufsi ka geystay magaalada Muqdisho waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka caawa kuwooda ugu waaweyn iminkana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka subscribe inoo saaro gambalelka furo si aad u hesho xogaha iyo wararka aan halkan ku baahino marka la soo dhawaada muuqaalkaana like inoo saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kalahaba ay u daawadaan waxaan ku bilaabayaa caawa wararkeena wararkii ugu dambeeyay shirka Muqdisho ka soconaya iyo xog ku saabsan qodobada ee dooda adag ay ka taagan yihiin isla marhaantaana la isku mari laayahay shirka u dhaxeeya madaxweynaha dawladda federaalka ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee looga hadlayo go'aanka gaarista doorashooyinka dalka ayaa maalintii labaad galay maanta wararka laga helayo madaxtooyada Soomaaliya oo uu shirka ka socdo ayaa waxay sheegayaan in qodobo dhowr ah oo kamid ah heshiiskii Dhuusamareeb 3 ee la doonayo in dib u eegis lagu sameeyo la isku mari laayahay isla marhaantaana madaxdu ay qodobadaasi isku khilaafsan yihiin inkastoo kulankii shalay uu ahaa mid daahfur u ah madaxda ee isku weedaarsadeen aragtiyadooda isla marhaantaana la isku waafaqay in la sameeyo tanaasul ayaa la sheegayaa haddana in kulankii maanta uu ahaa mid aad u xasaasi ah isla marhaantaana qodobada qaar la isku mari waayay madaxda ayaa isku hayay qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 waxaana madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo horey u qaadacay shirkaas ee qaybna ka ahayn ay markaasi doonayaan inay qodobadaasi dib u habeyn lagu sameeyo amaba ugu yaraan wax ka bedel lagu sameeyo qodobada doorashada ee dooda ugu adag ay ka taagan tahay ayaa ah cidda maamulaysa doorashooyinka maadaama heshiiskii Dhuusamareeb 3 uu awood siinayay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka hase ahaatee maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu qaabkaasi diidan waxayna dalbanayaan in la sameeyo guddi kale oo heer dawlad goboleed iyo heer federaal ah si doorashooyinka ay markaasi u maamulaan waxa kale oo iyana dooda ay markaasi adag ka taagan tahay tirada ergooyinka wax dooranaysa oo horey u ahaa 306 ergo waxaana arintan qaba in la dhimo inta badan maamul goboleedyada iyada oo la eegayo duruufaha amni waxaana jirta soo jeedin ku saabsan in ergada laga dhigo 101 ilaa 150 arinta kale ee dooda ugu weyn ay ka taagan tahay ayaa ah deegaanada la geynayo kuraasta ee ay ka dhacayaan doorashooyinka oo aan la isku raacsanayn waxaana madaxtooyada ay u aragtaa qodobkan midka ugu muhiimsan maadaama ay doonayso in gobolka Gado oo aan iminka gacanta ugu jirin maamulka Axmed Madoobe lagu soo doorto kuraasta xildhibaanada si kastaba ha ahaatee waxaa caawa soconayo kulamo kale oo gooni ah oo ay yeelanayaan madaxda ee shirka ka qayb galaysa isla wararkaas ayayna ku guda jirnaayeen xog aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu diiday qodobo ay u soo jeediyeen qaar kamid ah madaxda ka qayb galaysa shirka Muqdisho ka soconaya warar hoose oo aan ka helnay shirka Muqdisho ka soconaya ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu diidan yahay soo jeedinta madaxda oo la shirayo gaar ahaan Axmed Madoobe iyo Dani oo doonaya in meesha laga saaro qodobadii Dhuusamareeb 3 isla markaana hadda heshiis cusub la gaaro madaxweynaha ayaa la yimid ajenda ah in shirka uu noqdo mid lagu dhameystirayo heshiiskii hore balse aan wax laga bedelaynin heshiiskaasi isagoo ka codsaday Jubbaland iyo Puntland inay taageeraan qorshihiisa qodobada la isku mari laayahay waxa kamid ah in muddo kororsi aysan dhicin in guddiyo doorasho laga qabto dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka isla markaana guddiga doorashada ee hadda jira ay hal xubin oo korjoogta ku yeelato in doorashadu ay ka dhacdo caasimada dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka iyo in xisbiyada iyo kuraasta loo bixiyay ee xambaarka aysan xilligan suuragal ahayn in doorasho lagu galo
waqtigii lagu diyaarin lahaa doorashada ayaa ku lumay wada hadallo iyo shirar aan natiijo lahayn oo ilaa hadda socda, waxaana muuqata inaysan doorashada dalka waqtigeeda ku dhici karin oo markaasi ugu yaraan dhowr bilood ay dib u dhici karto. Puntland iyo Jubbaland ayaa isku bahaystay inaysan qaadan heshiis kasta oo aan danahooda gaarka ah aysan markaasi ka dhex arkin, iyadoo madaxweyne Farmaajo qancintooda waqti ay ka qaadatay ilaa Mareykanka uu soo farageliyo. si kastaba waxaa laga warsugayaa natiijada shirka Villa Soomaaliya ka socda oo rajadiisa ay aad u xun tahay, sababtoo ah waxaa jira shuruudo adag oo miis ka saaran kuwaas oo aan ka turjumaynin rabitaanka shakhsi ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. geesta kalena madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ayaa iminka waxay muujiyeen isku soo dhawaansho kadib markii ay ku kala tageen shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa saacadihii la soo dhaafay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxa uu ku marti qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. labada madaxweyne ayaa waxa soo kala dhex galay ismaandhaaf iyo madmadow ka dhashay shirkii Dhuusamareeb 3 oo markaasi uu ka baaqsaday madaxweyne Dani. ilo ku dhow kulanka ayaa sheegaya in labada madaxweyne ay muujiyeen isku soo dhawaansho meeshan ay ka saareen wixii kala aragti duwanaansho ah ee markaasi jiray. waxaa laga wada hadlay in laga wada shaqeeyo heshiiskii Dhuusamareeb 3 iyo sidii qodobada u baahan dib u eegista markaasi lagu dhameeyo shirka Muqdisho ka soconaya. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hore u qaadacay heshiiskii Dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen Puntland iyo Jubbaland. shirka maalintii labaad ka soconaya Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa qodobada saldhigga u ah ee laga doodayo waxaa ku jira heshiisyadii ee lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug. markaana waxaynu eegaynaa kulan markaasi xasaasi ah ayaa waxa uu hoyga magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhex maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare. waxa hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku kulmay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyaga oo sidoo kale halkaas ku wada qaadanaya kulan xasaasi ah oo diiradda lagu saarayo xaaladda Soomaaliya. kulanka ayay mas'uuliyiintan uga arrinsanayaan xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyaga oo diiradda ku saaraya xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 marka la gaaro xilliyada kala guurka ah oo ay soo dhow yihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka ayaa waxaa dalka ka bilowda kulamo iyo isxulafaysi siyaasadeed. dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacabka ayaa mooshin culus waxay u gudbiyeen gudoonka golahaasi. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay mooshin ka dhana kufsigii iyo dilkii Muqdisho loogu geystay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar 19 sano jir ah waxay u gudbiyeen gudoonka golaha shacabka. xildhibaanada ayaa dalbaday in ajandaha kulankii maanta lagu daro hase yeeshee gudoonka golaha shacabka uu dib u dhigay si guddi loogu saaro kiiskaasi. xildhibaan Cabdi Shire oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ay saxiixeen mooshinkaas hase yeeshee ay tixgeliyeen codsiga gudoonka golaha shacabka oo dalbaday in guddi loo saaro. jimcihii la soo dhaafay ayaa marxuumad Xamdi Maxamed Faarax waxaa kufsi iyo dil loogu geystay guri dabaqa oo ku yaala xaafadda Maaj ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir iyadoo ugu dambeyntii dabaqaasi laga soo tuuray. faahfaahinana waxa ay ka soo baxayeen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose. ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan Kumaandooska Danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose waxay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab. warbaahinta ciidamada dawladda ayaa baahisay in sarkaalka ciidamada dawladdu ay dileen oo lagu magacaabayay Aadan Yuusuf Maxamuud oo ahaa madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa diyaarinta qaraxyada. ciidamada dawladda ayaa weeraray guri ku yaala degmada Jamaam oo uu deganaa sarkaalka, waxaana sidoo kale weerarka lagu dilay 4 kamid ah ilaaladiisa oo dagaal la galay ciidamada dawladda. dhinaca kale ma jiro wax war oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada dawladda ee sarkaalka iyo ilaaladiisa la dilay, balse Al-Shabaab ayaa inta badan magacyada saraakiisha la dilaa shaaciya xilliyo dambe. ugu dambeyntiina rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda ayaa kufsi markaasi waxa ay ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho. dablay hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin ciidanka militariga Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay fal kufsi ah ka geysteen magaalada Muqdisho ee bilowga isbuucan. sida ay ku waramayaan maamulka degmada Shangaani ee gobolka Banaadir, falkan ayaa waxa loo geystay wiil 10 jir ah waxayna qoyska dhibanaha sheegeen in falka uu dhacay xilli habeen ah oo ay dablaydu markaasi u socdeen gurigooda. 2 qof oo dumar ah oo ku sugnaa guriga ayaa ka badbaaday falka kufsiga ah oo ay geysteen raggan aan weli la cadeyn waxa ay ahaayeen.
qof la tuhunsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda falkan geysatay ayaa ku xiran saldhigga degmada Shangaane. taliska booliiska way ka gaabsadeen inay ka hadlaan kiiskan walow ay xaqiijiyeen inay akhbaarta markaasi hayaan. kufsiga waxuu ku soo badanayaa Muqdisho. dhawaan ayay ahayd markii kufsi iyo dil loo geystay gabar dhawaan ka baxday dugsi sare oo magaceeda lagu sheegay Xamdi Maxamed Faarax, waxaana kiiskeeda ilaa haatan lagu hayaa baaritaano. guud ahaan daawadayaal wararkii oo caawaad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ayay ku dhayihiin wararkan wararkooda xiga. intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.